caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ee telefishinka qaranka Soomaaliland habeen kasta oo ay sabti soo galayso iyo habahan oo kale ayaanu barnaamijka si toos ah idinkaga soo gudbinaa stuudiyaha telefishinka ee xarunta magaalada Hargeysa. barnaamijkan waxay nagala qayb qaataa bahda caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyadoo haddaad tihiin daawadayaasha telefishinkana kaalintiina barnaamijkan aad kaga qayb qaadataan telefoonada shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ee idinka muuqda shaashadaha iyo meelaha kale ee aad barnaamijka ku daawanaysaan. barnaamijka caawa waxa aynu daawadayaal idil ahaantii kaga hadli doonaa xumadda daran ee ka jirta dalka Soomaaliland iyo sidoo kale wadamada aynu dariska nahayba. barnaamijkana waxaa marti iigu ah Dr. Seynab Cali Warsame oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ama isbitaalka guud. inta aynaan si toos u gudagelin sidii caadadayno ahayd aynu ducaysanayay intii naga baxday ee geeriyootay Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. inta xanuunsanaysa ee isbitaalada guryaha iyo goobaha kala jiiftana Ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo. inteena caafimaad qabtana Allaha u siyaadiye ayna xasuusnaano inaynu ka mahad celino nimcada uu eebay inagu galaday ee caafimaadka isla markaana aynu gudano waajibaadka uu Ilaahay inagu adoonsaday. intaa haddii aynu ducada furitaanka Ilaahay hay naga aqbalay daawadayaal ee barnaamijka aynu kaga tagno bulshada ku dhaqan mandaqada bariga Afrika haddaynu waliba si gaar ah Soomaaliland uga hadalno muddooyinkii u dambeeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka waxa aad looga dareemayay xumad daran taasi oo in badan oo bulshada kamid ah iyo qaybaheeda kala duwanba dhax qaaday iyadoo goobaha caafimaadka ee dawladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba inta badan lagu arkayo dad ka cabanaya xumadan. haddaba barnaamijkan caawa waxa aynu wax kaga ogaan doonaa maxay tahay xumadan, sidee ay u gudubtaa ama ay u faaftaa, maxaa keena ama sabab u ah xumadan ay salka ku haysaa iyo tilmaamo kale oo caafimaad. sidaan hore carabka ugu dhiftay barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Seynab Cali Warsame. waxaan jeclahay ugu horeyn inaan idinka iyo Seynab iskiin baro. Seynab soo dhawo marka hore. waad mahadsantahay. waa tuma Dr. Seynab Cali Warsame. Seynab Cali Warsame anigu waxaan ku koray magaalada Hargeysa, secondary-ga waxaan ka baxay magaalada Hargeysa, jaamacadda medicine waxaan ka galay Xamar, markii dambena post graduate-keygii waxaan ka qaatay Talyaaniga. 30 sanana waxaan u shaqaynayay NHS-ta ee magaalada wadanka UK, waxaan deganaa London. aad iyo aad mahadsan. waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarka weyn ee Hargeysa, waxaanan ahay quality care improvement manager-ka. marka hadda waxaanu ka bilownay shaqo qaybta emergency-ga, xaaladaha degdega ah. waxayna noogu socotaa si fiican oo habsan fiican leh. way Seynab dhakhtarad baa tahay isbitaaladii dawladda waliba isbitaalkii ugu weynaa Soomaaliland baad ka shaqaysaa, xog badan baad ka haysaa xumadan waqti xaadirkan dalka ka jirta. inta aanad hoos ugu daadegin waxaan jeclahay balad si guud marka hore uga waranto xumadan iyo adduunyada xilliga ku soo biirtay meelaha ay ku badan tahay, bal marka hore intaynaan teena tooska aynaan ugu degin. xumadan horta waxa la yiraahdaa dengue fever afka qalaad, laakiin sayidnanku waxaanu dhahnaa xumad un. xumadna waxa loogu jiri waa calaamada ugu horeysa qofku isku arko. marka xumadani wadanka Philippines iyo Thailand ayaa inta badan markii ugu horeysay laga identify gareeyay 1950. laakiinse adduunka meelo badan ayay ku fiday. marka waxa ugu badan sub-Sahara region-ka wixii xagga wadamada tropical-ka ah iyo Latin America iyo Asia-da oo dhan. marka inta badan xumadan
ma aha waa meelaha iminka calaamadaysan huruudda waa meelaha huruudda ihi waa dhulka aanay aad ugu badnayn meelaha cascase waa dhulka aad ugu badan tahay haddaba innaka waxaan isleeyahay malaha waxa idin keenay imika dadkii waxay tageen Maraykan waxay tageen India waxay tagaan Arab Emirateska xagga Carabta waxay tagaan Afrikada tropicalska kale marka kulli imka kanaacadi ba hadda timid xanuunkani ma aha sida durayga oo kale waxa kan durayga waa la kala qaadaa tan iyada lama kala qaado waxa keenta kanaaco haddaba ma aha kanaacadeena keenta malaariyada oo kale ma aha tan waxa la yiraahdaa AIDS Egypt baa la yiraahdaa marka kanaacadani waxay leedahay dhibcaha cadcad calaamadaas leedahay qofka wata hadda iminka qaniinaysa marka kanaacadaas baa xanuunka sida marka qof qaba qaniinto ay qofkii kale u gudbinaysaa marka labada qof ma kala qaadi karaan kanaacadani waxay hadhowaynu ka hadli doonaa sida qofku inuu isaga ilaaliyo ay tahay xanuunkan oo qura ma sido waxay sidaa 4 virus oo kala jaada ugu khatar sanaade ka yellow feverka marka Ethiopia iyo Afrikada in badan baa laga helaa waana khatar wuxuu keenaa beer xanuun marmarka qaarna qofku khatar weyn buu ku sugnaada yellow fever marka ma jooniska wax weeydo waa joonis yellow fever waxa loo yimi qofkii baa beerka kaga dhacaysa markay beerkii kaga dhacdana xataa jirkii baa yellow isu bedelaya jirkii baa huruud noqonaya indhii baa huruud noqonaya laakiin hadhow beer xanuun badan bay keentaa jirka kale iyo qofka xataa kaga dhacda sida kan xumadna way leedahay laakiin iyaduba khatar badan bay marka ma iyadu ku dhaxnoolay virus mise qof bay ka soo qaaday qaba xanuunka horta iyadu waa kanaaco waa factor way gudbinaysaa marka qof kulli waxa laga yaabaa wadamada hadda aynu dadkeedu tagayaan inay kanaacadi qof xanuunkii la soo cuntay halka wadankeena markay timi Somaliland ama ay Hargeysa ama gobolladeena kala tagtayna kanaacadi oo xanuunkii sida ayaa qofkii qaniinaysa qofkii uu qaadaya haddaba markuu qofkii qaado qofka kale qaba markiiba kama qaadi karo laakiin sida uga qaadaa waxa weeyaan qaniinyo ay kanaacadi qaniintay qofkii xanuunsanayay dadkana qofkii kale ag maraya ama ag jooga ama haday duushaba meel kale ugu tagtay ayay qaniinaysa oo qaadsanaysa si qur'ah ayuu qof ugu gudbin karaa waa hooyada uurka leh markii uurka leedahay dhiigeedii baa subuubo kanaacadii ay gelisay viruskii marka dengue feverkii ilmihii buu dhiiga u raacaya u gudbaya oo balasantada ayuu dhaafaya markuu dhaafana ilmihii buu ku dhacaya uurka ku jiray marka ilmaha uurka ku jira marka uu ku waa kuwa ugu khatarta badan ilmahaas marmar wuxuu u diidayaa inuu koro oo ilmaha dhashaa wuxuu noqonayaa xataa hadaan hooyada aad ugu xanuunsan wuxuu noqonayaa ilmo miisaankiisu yar yahay ama wuxuu noqon karaa ilmihii ilma hore u dhashaba oo wax miisaankiisu isna aad u yar yahay oo hadduu doono aan sii noolaan doonin marmarna caruurta waxayba ku keentaa dhimasho fayasada kale kanaacadu sideen waxaa kamid ah 4 baatil waxa weey waa 4 baa jira waxaan 4taas waa yellow feverka waa kanaynu hadda ka hadlaynaa dengue feverka waxa weeyaan isaguna Zika virus isna mid la yiraahdo iyo mid la yiraahdo jinking naginga oo marka waa kuudiya Soomaaliya adigu waxa weeyaan waa virus kaas oo kale iyadu uu egyahay sideedoo kale xumad leeyahay dhibaatooyin kale oo badan laakiin labada ugu khatarsan ee inaynu iska ilaalino waliba yellow feverka dadku talaalba iyadu leedahay dengue feverku talaal ma laha wali la recognize gareeyo oo leeyahay dadka lagu mudo laakiin yellow feverka 10 sano mar baa la isticmaalaa marka waxa fiican qofkii awoodi kara ama meel talaalka laga heli kara taga ila mar haday timi kara cadi wadankeena oo laga lama heli jirin yellow feverka waxa fiican in isticmaalo ama qof meel kale ku soo cuntiray oo soo qaybin oo de kara cadi joogto marka anigu horta waxaan ku talin lahaa tani imka talaal ma leh laakiin talaal kalena inaynu ka taxadirno
labada kale iyagu wax aad oo dhib badana ma laha waxaad sheegtay laba dariiqo in la isugu gudbinayo mid tahay kanaacadan oo qofkii bukay inta qalinto kii caafimaadka qaba u tagaysa iyo hooyadii uurka lahayd oo ilmihii uurka ku jiray haddii dhiiggiiba uu yahay waxaana hooyadii ugu gudbisay miyaan la isugu gudbin karin qofka dhiig qof xanuunsanaya laga shubay oo qof caafimaad qaba lagu shubayna taasi ma dhacdo dhakhtarka marka qofka dhiigga laga qaadayo dhiiggan horta waa la screen garaya waa la eega xanuunada ilaa hadii kale HIV baa dadka la wada qaadsiina waxa la qaadsiina xanuunka hepatitis-ka wixii dhiigga xanuunka galo oo dhan ayuu qofkii kala qaadi lahaa marka xanuunka waa la screen waa la eegaa waxa laga eegaa inuu qofku leeyahay xanuunyo caafimaadka dhiigga ku xiran marka dhakhtarku marka la siinayo qof dhiig oo lagu shubayo hadii jeer waa dhiig la baaray ma aha dhiig la iskaga shubayo sayidnabay mar haddii xumadani ay hore u jiri jirtay sida adiguba u sheegtay oo laga yaabo marar badanoo horeba inay ama dalkeena ama wadamada dariskeena soo martay ama waxyaalo u ego koodiyihii berigii oo kale uu jiray maxaa keenay in xaaladeedu ay imika cirka isku shareerto kanaacadani sida faariskan ay sido kanaacadi baa imika badan waxayna u badan tahay waa kanaacadu sida adiguba ogtahay dhaxanta way yar tahay laakiinse xilliga roobabowga kanaacadu way badataa marka maadaama ay dadkii qaniinayso meel kastay joogaan xanuunkiina sido sidaasay u badan tahay xilliga waxaan doonayaa inaad dadka u sharaxdo calaamadaheeda imika tanina haysa horta adduunka ilaa iyo 40% ayaa khatar u ah dengue feverkan xumadan inay ku dhacdo marka la eego UN-ta waxay ugu jirtaa tobanka ugu sareeya ee ay iyaguba ka warwarsan yihiin ay wax ka qabtaa ayay ku jirtaa haddaba xumadani waxay u qaybsantaa 3 qaybood waa marka ay qofka ku dhacdo horta jirkiisa waxay ku soo jiray viruskani wuxuu ku soo jiray ilaa 7 cisho 7 cisho qofku ma xanuunsado maadaama aan xanuunsanaynin hadhow buu isku arkayaa markiiba xumad aad iyo aad u fara badan xumadaasi waxay gaadhaysaa ilaa iyo 40 degree heerkulkeedu marka qofkii xumad aad u fara badan baa ku dhacaysa laakiin xumadda waxa la socda jirka oo xanuunaya muruqyada waxa la socda madax xanuun waxa aad loogu gartaa indhaha guntooda qofka xanuunaysa oo xagga dambe ka xanuunaysa lafaha xanuunaya qofka jirkana waxa ka soo baxa sida waxa ka soo baxa finan yar sida kanaacada jadeecada oo kale furuuruc baa ka soo baxa sida jadeecada oo kale marka ay stage ka joogto dadka qaar boqolkiiba maxay tahay inta badan 75% way ka bogsataa boqolkiiba 75 way ka bogsataa laakiin se waxa dhacda marmarka qaar ilaa iyo boqolkiiba 5 inuu xanuunkaas isu bedelo xanuun aad iyo khatar qofka u geliya xaalad adag geliya marka waxa la yiraahdaa severe waxa la yiraahdaa dengue fever haddaba markuu xaaladda geliyo qofka waxa isbedelaya caafimaadkiisii oo dhanba haddaba sidee xaaladan adag u gelinaya xanuunkani wuxuu galaa horta oo ataaga marka hore oo uu ku fidaaba unugyada caafimaadka ee jirka difaaca marka wuxuu wax yeelaa dhiigga cad iyo dhiigga maxay tahay xinjireeya marka waxa dhacda qofka xinjirtii baa ka jaraata dhiiggii wax xinjireynayay platelet-ka ahaa ayaa aad iyo aad u yaraada markuu aad iyo aad u yaraado qofku wuxuu ku dhacaa inuu sanka dhiig ka yimaado waxa ku dhacda inuu xagga dambe ka yimaado waxa dhacda marmar in hadday gabadhu xataa caado hesho uu aad iyo aad uga socdo marka khatarta ugu badan xataa waxa dhacda jidhkii marka ay dhiiggii caddaa yaraado uu dhiig baxo qofku biyaha jidhka xididada ku jira ee dhiigga la socda ayaa ka baxa xididadii baan si fiican u shaqaynaynin markii ka baxaan waxay galaan caloosha qofka caloosha weynaata waxay galaan sanbabadii baa iyaguna aan qofkii ka neefsan karaynin waxay galaan xataa xuubka dahaadha wadnaha dabeetana wadnihiina si fiican uma shaqaynayo isla markaana
qofkii dhiig ku filan ila waa kan dhiig baxay Ha, oo waa kan biyihii jidhka ay galeen dee jidhkii Caadi. intay xididadii ka baxeen Ha. qofka waxa hoos u dhacaya Ha. wax la yidhaahdo blood volume-kiisii jidhka eegadu 6 litir ahaa oo kale dee wuxuu hoos ugu dhacayaa wax 2-3 ah Waay. marka markiiba waxa weeye pressurekiisa dhacaya haddii aan dhakhtar la gaarsiinin wuxuu markiiba gelayaa shock maskaxdii xataa ayaan consciouskiisii qofkii ay halis ku sugan tahay marka horta waxa fiican qofku markuu xumadda isku arko yuu sahlanin markii xumadda ha ilaaliyo dawada uu qaadan karo keliyaatana waxa weeye paracetamol sababta loo ogol yahay inuu paracetamol oo qura qaato waxa weeye imka hadduu ibuprofen qaato ama aspirin qaato ama uu qaato maxay tahay dawooyinkan kale non maxay tahay diclofenac oo kale iyo oo inta badan dadkeena lagu mudo waxa weeye dhiigbax badan baa imanaya calooshii baa dhigbaxaysa sankii baa dhigbaxaya beerkii baa weynaanaya hadduu doono noqonayaba inaan si fiican u shaqaynin midda kale keliyihii baan iyaguna si fiican u shaqaynayn ilan waa ka dhiiggiiba yaraadee foliumkii dhiiggii qofkii ka yaraaday oo dhigna ka baxay biyihii fuuq baxay marka keliyihiina si fiican uma shaqaynayaan marka calaamadaha ugu darani waxa weeyaan qofka dhiiggii kuma fila qofka biyihii baa jidhkii ka baxay qofkii beerkiisi si fiican uma shaqaynayo wadnihiisi si fiican uma shaqaynayo maxay tahay sanbabadiisina naqaskii baaba qabanaya haddaba dadka waxaan ka waaninayaa maadaama uu xanuunkani iminka socdo in muddo ah siina fidayo oo dee dad badan uu ku dhacdhacayo waxaan dadka kala talinayaa horta qofka markuu reerka ku jira ama hadduu keligiiba yahay uu ku dhaco waa inuu dhakhtar tago haddaba sidaa lagu garanaya xanuunkan iminka dhakhaatiirtu way wada fahamsan tahay xanuunkan calaamadihiisa marka inta badan iyagoon baadhin bayba garanayaan laakiinse waxa ugu imboorsan qofka waa in laga qaado dhiiggiisa la qaado full blood count laga qaado markiiba waxaa la arkayaa dhiiggii cadaayoo dhacay dhiiggii cadaayoo dhacay hadduu dhiig baxay waxaa la arkayaa dhiiggii casaayo isaguna yaraaday laakiinse intaan stagekaa tegin hadduu dhiiggu uu dhigbaxo uu tago dhakhtarka ama uu tago xarun caafimaad waxaa la arkayaa dhiiggiisa cadaayoo dhacay iyo maxay tahay dhiiggiisa xinjiraynta oo dhacday labadaasi hadday dhacaan way fahmayaan dhiiggana waxaa laga eegaa qofka waxa la yidhaahdo EGM markuu ku dhaco ee wiig meelaha kadib lagu arko waxaa la arkayaa inuu qabo ama PCR-ka laakiinse iminka calaamadihii baaba inaf ah oo qofkii waa la fahmaya haddaba qofkaa maxaa loo baahan yahay laba wax baa loo baahan yahay qofkaas xumadiisa in si joogto ah loo ilaaliyo inuu calaamaduhu soo kordhayaan ilaa waxaynu nidhi 75% ayaa xanuunkani iska bogsada marka waxa dhici karta qofku inuu iska bogsado laakiinse haddayba dhacdo xaaladiisu inay sii xumaanayso waxa fiican si toos ah inuu xarunta caafimaadka la xidhiidho uu tago wax kalena yaanu qofkaasi cunin dawooyinka kaloo dhan hadduu cortison la siiyo haddii la siiyo xataa biyaha oo lagu rakibo dad baa hadda aan maqlay waxay ku leeyihiin waxaanu tagnay farmasigiiyo ama nurse baanu u yeedhanayo ilmihii baa xumad badan igaga dhacdayo xumadii baanu sayloon ku rakibnay sayloonka haddii qofka uu lagu rakibo ama milixda ama glucose ba haddii lagu rakibo oo uu biyihiina fuuq baxaye uu jidhka calooshiyo intii gelayay intiiba haddana kasii baxaysa markaasi qofkii khatar ku sugan oo intii ka badan gelaya marka taladeedu maanta waxa weeyaan qofka xumadda ha la eego qofka calaamado kale ma kusoo kordheen qofka paracetamol oo qura ha la siiyo laakiinse habkii loo qaboojinayay qofka markuu xumadooda uu gariiraa jidhkii baa isqaboojinaya yaan busta la saarin dharka caruurta ha laga bixiyo ha la soo qaado maro la qooye ha la saarsaaro xumadii ha la dhimo qofka waxaa kaloo waajib ah ilaa isagii baa reerkii intii kala qaadsiinaya qofkaas in goonin la seexiyo si aan u qaadsin isla markaana shandarawe uu hoos galo maalintii markay tahay dadka kalena si aan u qaadin isaguna u qaadsin dadka waa inay xidhaan dhar gacmo dheer ah shaarar gacmo dhaadheer toobab gacmo dhaadheer waa inay wax wadaan waa inay sharaabaado dadku gashadaan
qofkii gashan karaa xataa kaneecadii waa la iska ilaalinaya da kaneecadii waayo xanuunkan maxaa sidaa xanuunkan waxaa sida dangi feverka waxaa sida kaneecadaasi marka waa inaad iska ilaaliso inaani kaneecada ku qaniinin gurigii naftigiisii waa in la buufiyo oo dee kaneecadii la dilo haddaba kaneecadu waxay ukunteeda dhigataa biyaha meelaha hadda wadankeena dee dadku biyaha way shubtaa waxaa laga yaabaa inay foosto ku shubtaan waxaa laga yaabaa inay taangi ku shubtaan waxaa laga yaabaa reerkii intuu biyihii wax dardarsanayay inuu daboolkiiba ka qaado kaneecadu halkaasay ukunteeda dhiganaysaa halkaasay kaneecadii ukuntii markay waqtigeedii gaadhana ay kaneeca isu bedelaysaa haddaba waxaa la rabaa wiig walba in weelkaa iyo meesha biyo fadhiisinka ah iyo wax kasta biyaha laga qalajiyo hadda iminka foosta hadday tahay ama taangina la maydhaba oo meel aad gaadhaysa uu yaalo hadday yihiin taangiyada aan biyaha ku shubano waxa fiican in afka laga xidho oo dee la daboolo hadduu yahay taangigan xataa guriga dul saaran waa in la xidho haddaba waxaa kaloo jira kaneecadani way ka duwan tahay kaneecada kale anopheles waxay dadka qaadsiisaa maxay tahay xanuunkan aynu duumada nidhaahno haddaba tani waxay dadka qaniintaa maalintii bay active oo qaniintaa ama waxay qaniintaa aroorta hore ama maalintii oo dhan ilaa iyo markay qoraxdu dhacayso ta kale waxay u badan tahay kaneecada keentaa anophelesku dadka waxay qaniintaa habeenkii marka maalintii ama suuq joog ama meel kale joog waxa ugu fiican inaad iska ilaalisid caruurta markaad iskuulka u diraysid waa inaad dhar surwaal luga dheera shaar gacma la dhaadheer hadduu doono wax yaro cimaamada qofku qoortiisa aanay uga qaniinin hadduu doonayo koofiyad xidho dee waqti bay soconaysaa ee weligeed joogi mayso wayna ka ogo hadduu dhaxantii timaado ama ay roobabkan iyo waxaana joogsadaan dee way yaraanaysaa qofku hadduu beer weyn leeyahay dee beertii waa kaneecada aynu sheegnaye dhibcaha iyo leh waa la arkaa marmar iyadiyo ku qaniinaysa wax fiican beertana in la iska buufiyo waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo boqolkiiba 5 baa tiri xaaladoodu mid daran bay noqonaysaa oo khatar bay gaarsiinaysaa 20kii qof ay ku dhacdaba waxa laga yaabaa mid inay gaarsiiso xaalad sababtay u gaarsiinayso qofku inta badan waa caruurta sanadka yar oo kale ama qof lahaa xanuuno kale imka kaliya xanuun oo kale lahaa beer xanuun oo kale lahaa ama difaaca jirkiisu yaraa ama sonkor qabay ama iskiiba hadduu doono kansar oo kale qaba ama xanuunadan kale difaaca jirka hoos u dhiga ama qof hadduu doono dawooyinka qaadanayay warfinta iyo waxaasi oo hore ugu dhacay maxay tahay xanuunkan stroke oo kale oo loo diidayo inuu jirkiisa xinjir kale ku samaysanto qofkii haddaanu taa ogeyn waa inuu markiiba la xidhiidho dhakhtar waayo isagoo dhiiggiisa xinjiraynta laga ilaalinayay oo haddana uu dhulkii ay gasho maxay tahay plateletkii waa xinjiraynayay dee khatar badan bay ku suganta marka horta dadka qaata dawooyinka xinjirta baabi'iya ama asbriinka kuwaas hadday xumadani ku dhacdo waa inay si gaara dhakhtarkooda kala hadlaan marka aad iyo aad bay u important tahay intaanu qofku gaadhinba next stagekii inuu dee intaanu gaadhin qofka waa in si joogto ah loo eego oo xanuunkiisii halkuu maraya isla markaana reerkii intiisii kale gooni laga saxiyo hadda waxaad maqlaysaa reerkiiba u wada jiifaayo qofbu ku dhacay ilmuu ku soo dhacay reerkii intiisiina kalena uu ku dhacay ilmahan yar haddaba ee sanadka ka yar khatarta waxaa kaloo ah xanuunkani dengue fever wax la yidhaha serotype baa jira waa 4 nooc marka mid hadduu hadda kugu dhaco waxa way nolosha dib kuguma dhacayo laakiin qofka noloshiisa 4 xabo way marayaan haddii ilaahay ku beego ilaa waxba dhici karta adigoo wadan oo khatartan jirto jooga inaanu kuguba dhicin xanuunkii marka qofka haddaba uu hore ugu soo dhacay waa dadka uu khatarta u keeno jirkiiba already og maadaama jirkii og yahay iyo aad ula dagaalamayaa markuu la dagaalamo inta badan waa dadka khatarta gala oo difaacan jirkiisa uu samaynayo ayaaba keenaysa inuu xanuunkii sii xumaado caruurta xataa naftigooda sanadka ka yar haddii hooyadii ilmaha uurka isagoo ku jira uu xanuunkii ku dhaco
hooyadii baa waxay u gudbinaysaa ilmihii antibodieskii la yidhaahdo EGG oo kale. marka ilmahaasi 6 bilood ilaa sanad wuxuu sidanayaa difaacii hooyada. haddaba jirkiisii waa sidii qofkii uu ku dhacay oo kale oo ayuu dareemayaa. dabeetana markuu sanadkaa dhaafo oo kale xataa qofka naftigiisa khatarta waxay u tahay hadduu mid kale ku dhaco isagiiba inuu aad u xanuunsadaa. laakiin doctore sida qaalibka xanuunka kugu soo dhaca xanuunada weliba ka baxa leh ee la leeyahay talaalka tallaalada la qaato oo kale jirkii waa lagu tababaraa xanuun laga baqayay soo maaha oo tare soo aragti ka haysta oo wixii wax uga bilaaban yihiin buu fayraskii jirka galaa si la difaaco marka xanuunka qofka u dhaafa. imika haddaynu soo qaadano jadeecada jadeecada haday qofka ku dhacdo dib dambe si kuguma dhacayso waayo jirkaagii ayaa difaacay. hadhowna jirkaagii noloshaada dhan waxaad haysataa antibody oo dib kuguma dhacayso. hawa kan iska hiraya. haddaba kani waa 4 nooc baynu nidhi waa 4 serotype waa 4 nooc oo kala jaada. hadduu mid kugu dhacay ma aha inaad xanuunkii oo dhan u tahay. imika waxa weeyaan type 1 type 2 waxa weeyaan dengue virus 1 2 3 4. marka hadduu kii hore kugu dhacay mar labaad kuguma dhacayo oo jirkaagii dee difaac buu u leeyahay. laakiinse kii labaad waxbay ku kala jaadiyeen. imika oo kale haddaad aragtid durayga qofka waxaa la siiyaa tallaalka sanadkiiba mar. laakiin haddii marka sanadkiiba mar la siiyo duray dambe ma odhanayno kumuu dhicin. change baa dhaca mutation wax la yidhaahdaa dhaca. marka changeaasi dhaco nooc kaloo durayaa imanaya. qofkii xilligii duraygu markuu gaadho dee wadamada intooda badan waa la tallaalaa haddana because noocaasi nooci lama mid ah. marka dengue fever wuxuu leeyahay 4 serotype. marka 4taa serotype waxa weeyaan hadduu mid kugu dhaco dee 3 kale ku sugaya oo jirkiina aad moodeen garanaya haddana aanu garanayno. waxaan rabaa dadka inaan uga faa'iideeyo dhibaatada jirta waxa weeyaan qof waa inuu fahmo kaneecadii baa igu dhacday micnaheedu ma aha kaneecadii baa cuntay xanuunkii baa igu dhacayo xumadii baa igu dhacday bilo ka hor ama bil ka hor ma aha micnaheedu mar labaad kuguma dhacayo. wuu kugu dhici karaa markaasaad weliba dadka khatarta ku sugan noqon kartaa. haddaba sidaynu nidhi markii hore 5% ayaa inta badan isu bedela. 20 qof ku dhacaba hal qof baa noqda baa khatartaasi aadka ah ee uu qofkii halis gelayo. haddaba haddaanu qofku wax rabaa dadka inaan uga faa'iideeyo haddaanu qofku tegin dhakhtarka aan wixiisi lala socon gurigiisa wuu iskaga soo noqon karaa. laakiin waa in xumadiisi la eego maxaa ku soo kordhay qofkii ma bogsanaya. waayo 3 stage uu maraa waxa weeyaan qofku marka hore xumadii murqi xanuunkii lafa xanuunkii indii xaggiisii dambe iyo maxay tahay xaggooda dambe xanuuna waxaasoo dhan baa marka hore helaya. haddaba laba group ay dabeetana kala noqdaan. 5 aan ku idhi waxa weeye 5% waa 20 qof ku dhacaba mid ahaan waxay noqonayaan dad aad u xanuunsada. inta kale way bogsanayaan. finankii ka soo baxay uu finjabaya. haddii uu dhiiggii si cad ah hoos u dhacay dib buu u soo noqonayaa. haddii uu maxay tahay hematocrit wax la yidhaahdaa waxa weeyaan dhiigga waxa la qiyaasayo xanuunkan hadday tahay hematocrit-ka la eegaya. marka waxa weeye dhiiggeenu plasma iyo dhiig buu isugu jiraa. haddii uu dhiiggii fuuq baxo oo dhiiggii biyihii ka baxaan dee waxay isu soo hadhaya dhiiggii casaa dhiiggii cadaa iyo plateletskan. marka waxa la eega waa taasi dhakhaatiirtu waxaasay eegayaan. marka qofku hadduu hematocrit-ka dhiiggiisu uu stable noqdo oo uu maxay ahayd finkii ka jabo oo xumadii ka yaraato oo dhiiggii sare u soo noqonayo qofkaasi glucose in la siiyo wax kale uma baahna. biyihiisa caadiga waa inuu cabo because marmar khatar haddaba tan kale haddii uu qofku stageka xun gaadho hematocritku 2 qaybood buu noqon karaa. mid wuxuu noqon karaa qofka hematocrit-kii oo yaraaday. hematocrit waa maxay aan garanay waxa weeye dhiigga ma aragtay wuxuu leeyahay cells-kaas waxa weeye kii dhiigga cadaa unugyada dhiigga cadaa dhiigga iyo plateletki iyo plasma oo inta badan inta ugu badana
marka waa ina kan le wuu ka baxaya hadduu ka baxo oo uu dhiiggii oo aanuna dhiig bixin dhiiggii dee unugyadii baa badanaya hadday unugyadu bataan waxa la rabaa haddaad qofka siisid markaa maxay tahay silon glucose waxaan leeyahay aad siisid milix dee khatar baad sii gelinaysaa waxaa la siinayaa wuxuu noqonayaa albumin ama ringer baa qofkaa lagu xidhaya si uu oncotic pressure wax la yidhaahdo biyihii jidhka u soo jiito uu dhiiggii ugu soo noqdo haddaba hadduu qofku dhiig baxo oo ama dabada dhiigga ka keeno ama matago ama sanka ka yimaado ama afka oo inta badan ciridka aad u dhiiga taas qofkii dhiig baa ka baxay hadda dad badan waxaan maqlay waxay siiyaan dhiigga xinjirowga platelet bay siiyaan ama waxay siiyaan plasma oo is yidhaahdaan dhiiggii ha u xinjireeyo labadaas haddii aad siisid plateletska oo kale qofkii waxaa ku dhacaya inuu uun sii kordho khatar kama celinayo dhiigga xinjiraynta ma badanayo laakiinse waxaa laga yaabaa inuu khatar u geysto marka lama ogola blasmahana lama ogola qofku waxaad siinaysaa hadduu maxay tahay dhiigu ka baxay oo uu dhiig baxay full blood baad siinaysaa dhiig aan la kala saarin ayaad qofkaas siinaysaa aad baa umahadsantahay doctor Zainab waxaan jeclahay bal markan hadda kaalintii daawadayaasha iyagoo isticmaalaya nambarka idinka muuqda shaashadaha ama meelaha barnaamijka ka daawanaysaan intii iminka nagu soo biirtay haddaan u sheego waxaanu ka hadlaynaa xumadda waddanka ka jirta waxaan idinka codsanayaa su-aalihiina inaad ku ekaysiisaan qodobka uu barnaamijku dul taagan yahay iyo xumadda waddanka ka jirta qofka koowaad ayaan jeclahay isagoo qofkuna soo koobaya su-aasha iyo magacaba inuu israaciyo aan soo dhaweeyey qofka koowaad iyo farsamo yaqaan Jimcaale oo Cali oo maamulka stuudiyaha gacanta ku haya iyo kooxdiisa assalaamu calaykum hello ma maqlaysaa walaal waayahay waxaan filayaa qofka inaan ismaqlaynin qofka labaad ayaan jeclahay inaan u gudbo hello hello السلام عليكم ma maqlaysaa walaal soo dhaweey magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso magacaygu waa Cumar waayo waxaan barnaamijka soo labaad socon si fiican wala socday wariyaha iyo waxaan doonayaa hal su'aal inaan weydiiyo soo daa imika qofka ma dhahayo stage koowaad maraya waxaad xalaan isticmaali maxaa tala siinaysaa qofka imika xumadii ku bilaabantay is arkayo inuu marxaladii koowaad joogo aad baad mahadsantahay waad mahadsan tahay qofku hadduu marxaladii ugu horeysay joogo oo uu xumadda isku arko horta xumaddu khatar badan bay jidhka u keentaa marka horta waa inuu xumaddii iska jebiyo laba siyood buu iskaga qofkii xumaddii isaga yaraynaya waa isaga oo qaata dawada la yidhaahdo paracetamol dawo kale ama banadoosha dawo kale ma qaadan karo way wada khatar banadol iyo paracetamol waa laba kaniin maya waa isku mid un laakiin labada magac bay leeyihiin labaduba paracetamol baa ku jirta marka dawada paracetamolsha ah unbaa u dawo ah laakiinse qofku waxyaabo badan oo kale inagu qofku markay xumadda ay ku dhacdo ee uu xumadiisa sarayso wuu gariiraa dabeetana wuxuu yidhahdaa busta isoo saara marka waxaa loo baahanya qofka in laga qaado wixii tuwaal wixii dhar ah oo la dedin wuxuu u baahan yahay haddii marooxadi jirto in marooxada loo furo wuxuu loo baahan yahay in tuwaal inta lasoo qooyo madaxa loo qaboojiyo marka jidhku hadduu temperature-keena caadiga yahay waxa weeyaan 6 laakiin hadduu 40 iyo wax ka badan gaadho waxa weeyaan jidhkeenu siduu u shaqayn lahaa baan sii shaqaynay marka qofku markuu sidaa yahay waa in xumadda laga jebiyo oo halkan inta la sii dawo laga daawo la qaboojiyo looma baahna in dhakhtar la geeyo xataa hadduu matag yar iyo uu shuban yar leeyahay waxaa loo baahan yahay qofka in biyo la siiyo biyo badan la siiyo sharaab la siiyo laakiinse qofku markuu stagekaad ku jiro oo kale maadaama aan leenahay dhiiggiisii cadaabaa dhacaya dhiiggiisii kalaa dhacaya qofkaas wuxuu u baahan yahay cunno brotiinku ku badan yahay ama hilib ha ahaato ama digaag ha ahaato ama beer ha ahaato ama ha ahaato qofka ku xiga ee khadka ku jiraan jeclaa inaan soo dhaweeyo adoo raalliya waxaan kaa codsanayaa inaad shaashadda ka durugto ama iska naaqusto barnaamijka meeshaad ka daawanayso
magacaaga magacaygu waa Ibrahim waayahay xiiso ma nala socotay maxaad su-aal haysaa waa la socdaa maxaad su-aal haysaa maxamedo waxaan weydiinayaa hahey hahey umul buu ku dhacay xanuunkani waayi haya waayi ilmihii yaraana wuu sumayaa wuu shubmayaa dhamaaskii u shaqayaa ilmi yaraa wuu shubmayaa naaskii u shaqayaa su-aashaada dhakhtarad waa in yari dhegeysa xiisow su-aashaada dhakhtaradu ha ka bogatee ka yaro durug shaashada walaal waxaan kuri hahey waan ka dadka waxaan kuri hahey gabadhu way umusay waayahay xumadii baa ku dhacday way sumatay si fiican ilmihii yaraana inuu 40 maalin uu sumayaa waayi maxaa u joogaa waayi ilmaha yari horta haddaanay hooyada ku dhicin iyadoo uu ilmaha uurkeedii ku jiro hooyadii ilmihii way dhashay dhiiggeeda iyo dhiiggiisa iskuma dee uma gudbin karto naaska waxana uguma gudbin naaska uguma gudbin weli maynu arag meel laleeyahay naaska caanihiisa gudbiya laakiinse waxaa dhici karta dee khatarta kale jirtaa inay kaneeca cunto oo ilmahana cunto marka horta waa in laga ilaaliyo ilmaha iyo kaneecada qolka laga buufiyo loo diyaariyo laakiin ilmuhu hadduu shubmayo caruurta jidhkoodu inta badan waa biyo ilmahaasi haddii hooyadii uu xanuunkii qabo waxaa dhici karta inuu hadduu doonto isna kaneecadii cuntay yaan la dhayalsanin dhakhtarka ha la geeyo ha la eego dhiiggiisa siduu yahay dhiiggiisa ilmihii macaadiba mise ma aha waa in dhiig laga qaado dhakhaatiiri eegto ilmuhu marmar hadduu aad u fuuq baxo oo dee uu aad u shubmo dee khatar baa u iman karta si dhaqsa ah marka ilmaha anigu waxaan kula talin lahaa dhakhtar ha loo geeyo xaaladiisa si fiican ha loo eego hooyaduna xaaladeeda waa in si degan loola socdo isla markaana dadkii kale laga ilaaliyo dee kaneecadii inta iyada cuntay inay u gudbo xanuunkani inta badan wuxuu marka hore qarsoonyo aanu qofku asymptomatic aanu calaamadba lahayn 6-7 cisho ugu horeysa oo qofkiina jirkiisii ku jirto haddana aanu qofkii is ogeyn 7 cisho u qarsoonyo intan kale ku dhilayaana intay noqonaysaa intan dambena waa 2 week ilaa 2 week 10 cisho 7 cisho ayuu qofkii uu kaga baxaya ilaa iyo ugu badnaan 2 week laakiin qofka uu xanuunka xun hadhow ku noqonayo markaasuu isbedelaya marka hooyada naftigeedu maadaama ay hooyo tahay ay umushay ee 40 ku jirto ilma nuujinayso horta waa in la siiyo biyo badan waa in la siiyo cunno nafaqo leh isla markaana ilmaha iyo hooyadaba xaalkeeda lala socodsiiyo dhakhtar way qofka xiga ayaan u gudbayaa halo assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhaweeyaa magacaaga waan ku maqlayaa si fiican wala ina yara wala laba jir way la dhacday xanuunku ka owde 2 jir marka nimanka xumadii way ka laban tahay haye marka waxaan weydiinayaa dhakhtarada imanka markay xumadii yeelatay aan ka jabiyey shuban yeelatan dawo shuban la siiyey ciridkii ilkii baa dhiigaya waayo balka su-aashaasaan weydiinaya horta hadduu dhiigu bilaabmo oo ilmihii ciridkii dhiigayo ama sanku dhiigayo waxaa dhici kartaa inay plateletkii dhulka galeen oo ay hooseeyaan waa in ilmahaas oo kale dhakhtar la geeyo waxaa dhici karta xanuunkii ilkaha yaree dhiigaya mar haddaanu meelo kale aanu dhiig ka socon sanka ka socon dabada ka socon aadan calaamad kale oo dhiig arag waxaa laga yaabaa ilmahaas inay wax yartoo hadduu doono iska bogsado oo markuu dhiigga xinjirayntu hoos u dhaco la yidhaahdo plateletku hadhow markuu qofku 10 cisho kadib uu bogsanayo dhiiggii wuu soo kacaya kii cadaabaa soo kacaya kii xinjirayntuna wuu soo kacaya laakiinse si aan ilmihii inagu ma arkayna hadda ilmihii yaanu sii gelin xaalad culus oo kale hadda dhakhtarka gee marka dhakhaatiirta ayaa tala siinaya had iyo joorna ilmaha eeg xaarkiisa xaarku dhiig ma leeyahay
ilmaha hadduu mataga dhiig ma la socdaa ilmaha naqasku waa ku sidee waa inaad ilmaha si aada ula socotid finan hadday ka soo baxeen eeg finankii ma ka jabeen mise jirkii wax kaloo cascas iyo waxbaad ku arkaysaa laakiin ilmahaasi wuxuu degdeg hadduu ciridkii ka dhiigay waayo waa calaamadaha lagu garto inuu stageka sii kordhi karo waxaana dhici karta inuu ilmuhu bogsan karo marka waa inaad degdeg u geyso dhakhtar qofka xiga ayaan gudbayaa halo asalaamu calaykum عليكم السلام. soo dhawaal magacaaga iyo halka joogto iyo su-aashada israaci magacay magaca Taba Maxamed. waay Waxaan joogaa Hargeysa. si fiican Waxaan weydiin lahaa qofka marka xumada ku dhaco. haa Qofka ka qiyaastii loo inta keenaya. maxaa tiri Tan qiyaastii loo inta ka keenaya. haye Waxa uu dheer waqtigaalka la dhigo suuda. haa Ayaa qofka dhiig ka qiimanaya qofka qiimanaya. waay Markaas aad waa dhiigka waay waad fahantaan filaya su-aasha qofku haddii uu afka si ka keeno dhiig ama uu sanka ka keeno micnaheedu waxa weeyaan xaaladii aadka u adkayd waxaa la yidhaahdaa dengue fever oo wuxuu noqonayaa severe buu markaa xaaladdu way culus tahay qofkaasi waa qofka loo baahan yahay in dhakhtarka la dhigo la eego inuu u baahan yahay in dhiig lagu shubo la eego inaan waayo qofkaa jira intuu dhiigku ka yimaado aanu badnayn iska ladnaada laakiinse ilow qofkaasi waa inuu dhakhtarka la geeyo dhiigaga laga qaado la hubiyo inaanu dee dhiiggii ka yarayn la hubiyo inaanu dhiiggiisi ka bixin biyihii oo aanu albumin iyo ringar u baahnayn layskagama shubi karo ilaa iyo qof dhakhtari uu gaadho decisionka oo xaaladda darsan xaaladdaa degso waayo waxaa loo baahan yahay qofkii in blood pressurekiisi la eego consciouskiisa siduu yahay la eego maaragtay dhiigagii laga qaado la hubiyo xaaladiisa marka qofkaasi mar hadduu dhiig sanka ka keenay ama af ka keenay waa xaalad emergency waa in dhakhtarka la geeyo waay qofka xiga ayaan jeclahay inaan u gudbo halo asalaamu calaykum halo waan ka xumahay daawadahaasi inaanu fursadda ka faa'iideynin qofka ku xiga khadka ku jira asalaamu calaykum waayahay telefoonkaa kalena isaguna wuu go-ay qof kale ku jira asalaamu calaykum may maqlaysaa walaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow shaashadana iska yar naaqus ama ka yar durug si ay dhakhtaraduna su-aashaada si fiican ugu maqasho magacaagii halka joogtana noo sheeg waxaa la yidhaahdaa hodan waayi hodan cabdi hodanay waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka caafimaadka waan ku dhowahay walaale waxaan ku weydiinayaa su-aal hey waxaana joogaa xaafadda axmed nagax waayi walaal gabadh uur leh oo dhiig marka la xumada ku dhacday marka la cabiraba dhiiggeeda wata laleeya wuu hooseeyaa xumadna imika way ka jirtay waayi waxaana leeya dhiiggeeda wuu hooseeya calaamado kalena ma laha oo xumadii mar hadday ka jabtay wax calaamado kalena ma kama muuqdaan wax calaamado dhiiggaa kacaya isna marna wuu hooseeya marna wuu kacaya waayi su-aashooda bal arrintaa ka waran hodanay waad mahadsan tahay xaaladaasi hooyada waa in dhakhtar la geeyo sababta ay tahay horta marka ugu horeysa iyadiibuu xanuunkii ku dhacay marka dhiigu hadduu dhaco xataa waxaa dhici karta dee inuu balasmihii ka baxay oo dee hypotension ku dhacayo qofkaasi marka hadduu dhiigu uu pressure ku dhaco micnaheedu waxa weeyaan wadnihii iyo xubnihii jidhka ma helayaan wax gaadhsiiyo dhiigii waayo markaynu leenahay pressurkii waa normal dee isagaa wadnuhu intuu garaaco dhiiggii meel walba u diraya xubin walba marka waxaa dhici karta inaanu dhiiggiiba biyihii dee ay fuuq baxday oo uu dee xididadeeda ay u baahan yihiin in wax biyo ah ama dhiigga lagu shubo marka waxaa loo baahay xaaladaasi waa xaalad degdega ta labaad hooyadan waxay kaloo mar labaad degdeg u tahay ma aha iyadoo quraata ilmihii uur bay leedahay ilmihii caafimaadkiisina waa in la eego waana tii u gudbin karaysa ilmihiina hadda way u gudbinaysaa
imika way u gudbinaysaa dee haddii ay xaaladeedii sidaa tahay marka hooyadaa waxaan kula talin lahaa dhakhtarka horta iyadu waxay u baahan tahay inay dhakhtar dumar aragto dhiigeeda la cabiro dhiigag laga qaado la eego xaaladeedu had halkay taagan tahay iyo inay dhiig u baahan tahay iyo inay u baahan tahay albuminta ama wixii kale iyo inay da iska caafimaadaysaba ila saddexdaba way geli kartaa ilmahana si khatartiisa loo yareeyo waa in la eego ilmihii ma caafimaad qabaa mise waa caadi marka hooyo hadduu ku dhaco uur leh waa laba emergency waa ilmihii caafimaadkiisii iyo hooyadii caafimaadka oo doctor waxaan ku weydiiyey markan qofkii weynaa ee caadiga ahaa xumadii ku dhacday oo adigan yidhi calaamadihii baa taxday waxaad tiri hadduu saa noqdo saasuu yeelaya hadduu saa noqdo saasuu yeelaya hooyadii oo lala tacaalayo xaaladeedii dee yani waxbaa la siinayaa dhakhaatiirtii baa calaamadihii arkaya ilmahan caloosha ku jira oo ay u badan tahay inuu u gudbayo xanuunkii isaga maxaa loo qaban karaya horta hooyadan ilmahani siduu u nool yahay haddaynu isweydiino ilmahani wuxuu u nool yahay hooyada ayaa dhiigeedii u gudbaya oo mandheerta ayaa u gudbisa marka ilmihii wuxuu u baahan yahay oxygen inaku waynu neefsanaa ilmuhu ma neefsado dhiigu ka qaataa oxygenta nafaqadii xaggii cuntadii oo dhan wuxuu ka qaadanayaa dhiiggii dee xanuunkiina wuxuu uga tegayaa dhiiggii haddii hooyadii baarasintameeshay cunto xataa iyadiina way u tegaysaa marka hooyadu waxaan baarasintamo lahayn hadday xataa ur leedahay waa inaanay qaadan laakiin haddii hooyadii xaalkeedu cusub yahay ee culus yahay dee maaha hooyada in lasii hayo waayo ilmahan yar baa kasii khatar badan waxaa dhici karta ilmahaasi inuu caafimaado oo caafimaad ku dhasho waxaa dhici karta hooyadaasi haddii uurku dee xilligii hore yahay inuu ilmahaas ku dhaco oo ilmihii kori waayo waxaa dhici karta ilmahaasi inuu hooyada dee ay dhashaba oo haddii waktigeedii dhow yahay uu ku dhasho wakti ka degdegsan marka waa in ilowba ilan waa laba nafoode uu dhakhtar arko aad bay umahadsan tahay doctor saynab cali warsame waxaan ka cudur daaranayaa daawadayaasha inta kale jeclayd inay su-aala soo weydiiyaan in xataa wakti dheeraadaanu ku daray kolley intaas ay ilahay qadaray su-aalihiinu daawadayaal inay ku ekaadaan isla barnaamijkan caawa barnaamijka caafimaadka telefishinka qaranka ama barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda warfaafinta waxay idin ballan qaadayaan in inta xaaladda lagu jiro ay idiin soo gudbin doonaan xogo iyo tilmaamo iyo talooyin si toosa uga soo gudbay bahda caafimaadka iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan oo xaaladda aynu kula tacaalayno insha allahu gabagabada barnaamijka saynab baan jeclahay tilmaamo kooban inay ugu celiso daawadayaasha oo xaaladan xumadda ah kiniinkii baarasitamolku ha ugu horeeya waad mahadsan tahay horta maadaama aynu ognahay inay xumadi jirto yaan laga fekerin qofka duray baa haya ama wax kalaa haya hadday qofka xumadi qabato oo si degdega u qabato oo ilaa iyo horta guri kasta maanta waxaan kula talinayaa waa wax jabane ta xumada lagu qiyaaso inay soo qaataa waayo marmarba qofka taabanaya odhanaya xumadba male isagoo xumad leeyahay marka horta waxa aynu aada ugu baahannahay waa inaynu kaneecada ka dhammayno guryaheena oo iska buufino hadday biyo meele inoo ku jireen waa inaynu daboolo isla markaana aynu ukuntii ay dhashay kaneecadii oo kale si aanay kaneeco weyn inoo ku noqon iyadanaan maxay xilligan uu jiro xanuunkanina dadku qaataan dumarku qaataan marayooyin gacmo dhaadheer ama huwadaan isla markaana caruuraha iyo iskuulka marka loo dirayo ama raggu xataa markay dee xidhanayaan dharkooda jaraabaadadooda maxay tahay surwaalkooda shaarkooda koodhkooda waxaasoo dhan waxay yaraynayaan xanuunkii laakiinse laba wax baan anigu imka tala aan siinayaa dadka waxa weeyaan xanuunkani 3 stage buu maraa waa stage uu cusub yahay oo xanuunku sidaa dee uu jir xanuun lafa xanuun xumadaas fudud yahay iyo mid dhexdhexaada iyo mid markaa waxa laga yaabaa kaa fududay inuu gaaro stagekii uu dib jirka isu soo kabanayo oo qofkii iska ladnaado waa 75% waa 95% maaha waan qaldamay layga raali ahaado waa 95%
laakiinse boqolkiiba shanta kale soo hadhay ayaa labada marxaladood ayaa labadan marxaladood u mid sii daran iyo mid aad u yar daran marka haddii aan qofka la daweyn waxaa laga yaabaa boqolkiiba 10 inay isu bedesho oo labalaabato marka talada aan halkan caawa ka jeedinaya waxa weeyaan qofka waxa dhici karta in haddii uu xumada isku arko gurigiisa ha joogo yani waxba isku xidhin maaragtay milix ama glucose yani waxba isku xidhin biyo badan afkaa ka cabo xumada ha iska dhimo cunno fiican ha qaato rasna ha sameeyo because ha nasto marka xumadii waxaa laga yaabaa inuu sidaa kaga baxdo dad badan baa waxaa jira dhakhtarka weyn ku carara ama dhakhaatiir u taga xaaladaada ha lala socdo oo ha lagu eego dhiigaagii ha la eego ha la hubiyo inaad xanuunkii qabtid laakiinse ma u baahnid marka inaad dhakhtar seexatid mar haddaad leedahay gurigaaga ku soo noqo laakiinse xaaladaadii ha lala socdo haddii aad wax dhiiga isku aragtidba ama uu qofkii consciouskiisi aanu fiicnaanin oo dee sidii wax xiskii luminaya noqdo ama barad bashar ku dhaco ama uu qofkii dee xanuunkii kusii siyaado oo beerkii dee uu kaga dhaco keliyihii kaga dhaco yuuna sugin stageka markuu arkaba in xaaladiisii ay 10 cisho meelaha uu dee kasoo reyn waayo taas waa inuu tago dhakhtarka dhiig iyo wax isku arko dawada keliya loo qaadan karayaana waa paracetamol dawada keliya loo qaadan karaa waa paracetamol hadduu qofku aspirin qaato ama ibuprofen qaato ama dawooyinkan kale dee loo qaataba qaato cortison xataa qaato uma fiicna dhibaatada ku kordhin karta waad mahadsan tahay biyana yaanu qaadan afkiisa qofku intuu caafimaad qabo biyaha cab aad iyo aad baad mahadsan tahay doctor Saynab Cali Warsame oo barnaamijka marti igu ahayd isla markaana halkan inagula wadaagaysay tilmaamo ku saabsan xumada ka jirta wadanka aad baan dhakhtarada ugu mahad celinayaa waxa kale oo barnaamijka caafimaadku ugu mahad celinayaa in abaabulka iyo agaasinka barnaamijka ay qayb ka ahayd doctor Faadimo Xaashi Iimaan oo iyadoo kamid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Somaliland si gaarana ay Saynab saaxiib u yihiin kana mid ah la taliyayaasha barnaamijka caafimaadka had iyo jeer dadka tilmaamaha siiya aad baan labadooda ugu mahad celinayaa kooxdii farsamada oo Jimcaale uu ugu horeeyo iyo kooxda baahinta telefishinkaba aad baan iyagana uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee idinku soo gudbiyeen muuqaalada iyo codadka fariimahan idin soo qaaday barnaamijka waxa soo saaray soo jeedinaya aniga Axmed Cismaan Batuuna haddii ilaahay ogolaado inaynu habeenkiisa isugu nimaadno barnaamijkan la mid ah dhammaanteen iyo dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka
cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo